Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah aan noogu magac darnay ma ogtahay dhegaystow. Waa barnaamij aan ku doonayno macluumaad badan inaan idinkugu soo gudbino mawaadiic muhiim aan u aragnay inaan ka faa'iidaysano diinteena islaamka iyo fahamka guud ee nolosha aan ka haysano. Haddaba barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa tawxiidka, maadaama asaga ugu sareeyo qofka islaamkana waxa ugu horeeya laga doonayo ay tahay in uu barto Allah subxaanahu wa tacaala si guud ahaan tawxiidka aqoon ugu yeesho. Haddaba xalqadan koowaad waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan tawxiidka ee aan idinkaga soo diyaarinay. Ku soo dhowaada. Ma ogtahay dhegaystow kelimada tawxiidka inay u taagan tahay laa ilaaha illa allahu muxammad rasuulullah ama lagu micneeyo kelimadaasi. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka dartiisa janno iyo naar loo sameeyey. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka dartiisa in koonka iyo basharka loo abuuray. Ma ogtahay dhegaystow tawxiidka dartiisa in Allah u soo diray ummadda rasuul. Ma ogtahay dhegaystow tawxiidka dartiisa in Allah subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey kitaab. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka waxa ugu horeeya dadka lagu yeero markuu Mucaad bin Jabal loo diray Yemen, nabiga calayhi salaatu wasalaamna halkaa u diray, waxa ugu horeeyay la faray in ugu yeero dadka waa tawxiidka. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka dartiisa ay dadka u qaybsameen oo ay noqdeen mu'min iyo gaalo. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka oo ah su'aalaha ugu horeeya la horkeenayo qofka markuu dhinto ay yihiin su'aalaha ugu waaweyn ee tawxiidka. Haddii uu ka jawaabo qofka uu badbaadi doono, haddii uu ka jawaabi waayana uu khasaarayo. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka faa'iido ugu weyn lagu helayo ay ka mid tahay in loo dambi dhaafo addoonka hadduu la yimaado tawxiidka. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka uu yahay furaha lagu galo jannada. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka uu yahay kelimad lagu soo aruuriyo diinta islaamka ama ciwaanka ka tarjumaya diinta islaamka. Ma ogtahay dhegaystow in cibaadada waxa ugu weyn ee addoonka uu sameeyo uu yahay tawxiidka. Ma ogtahay dhegaystow dambi la gala midka ugu weyn inuu yahay shirkiga. Ma ogtahay dhegaystow qofkii la yimaada tawxiidka in uu helayo maalinta qiyaamo amni. Ma ogtahay dhegaystow qofkii ku dhaqma tawxiidka haddii aanu soo gaabino muwaxidka, haddii xitaa naar uu galo kuma waarayo maalinta qiyaamo. Ma ogtahay dhegaystow in tawxiidka uu yahay asbaabaha ugu weyn ee lagu helo raalli ahaanshaha Rabbi. Ma ogtahay dhegaystow qofkii dhaha kelimada tawxiidka in nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay asagoo og kelimada inuu janno gelayo. Ma ogtahay dhegaystow in kelimada tawxiidka uu nabiga sallallahu alayhi wasallam gaalada Quraysh ku lahaa qulu laa ilaaha illa allah tuflixuun. waxaad tidhaahdaan laa ilaaha illa allah waad liibaanaysaan. Intaa haynoo ekaado dhegaystayaal xalqada koowaad. Intaan ku kulmin xalqada labaad waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.